iyadoo weli degmada Buloburte ay ka socdaan baadgoobkii ruuxii kufsiga kula kacay Sabriin Maxamed Xasan oo 9 jir ayaa waxa dhacdadaasi ka hadlay ururka dhalinyarada degmada Buloburte iyagoona sheegay in xanuunka iyo tiiraanyada ay la qaybsanayaan Sabriin iyo reerkeeda maadaama wax laga xumaado ay tahay in gabar saqiira kufsi arxan darra loo geysto gudaha degmada Buloburte ee gobolka Hiiraan waa kuwan qaar ka mid ah ururka dhalinyarada degmada Buloburte oo ka hadlaya arinta ku aadan dhibka loo geystay Sabriin Maxamed runtii wax ka dhacay degmada Buloburte maalintii Jimcaha 24 bisha May sanada 2019 waxay ahayd waxaad looga xumaado wax aad iyo aad looga yeeqsado wax qof muslim ah qof bini aadam ah oo dul qaadan karin waxaan raali ka ahayn waxaan maxaa ku sheeg la fiirsan karin haddana ururka dhalinyarada degmada Buloburte waxaan aad ugu xunahay kiiskaasi dhacay reer Buloburte dhamaan way ka wada xun yihiin falkaasi dhacay raalina kama noqon doonaan in laga aamuso ama sidaan looga haro ninkii falkaasi geystay falkaas wuxuu dhacay maalin Jimcaha oo barakeysan oo Allahu maalinka isbuuca barakeysanaa uu ka dhigay wuxuu dhacay maalin bil Ramadaan oo bishii sanadka uu barakeysanaa wali wuxuu dhacay maalin subaxa 2 saac bari ilaa 3 saac ka dhaxayso wuxuu ka dhacay magaalada ma aysan ahayn baadiyo ninka geystay kullee waa la fahmi karaa balse waxa maleynaa ilaa iyo hadda in laga aamusan yahay oo aan si sax ah loo wajahin qofka daalimka ah oo gabadha yar Sabriin Maxamed Xasan oo bil Ramadaan lagu jiro maalin Jimcaha ay tahay maalin caday bareer 3 saac oo barqa magaalada dhibkii ka dhacay haday odayaashii ka damqan maamulkii uusan ka damqan laamihii amnigu aysan ka damqan dhalinyaradii aysan ka damqan ururkii haweenku uusan ka damqan dhamaanteen waxaan noqonaynaa raali dhibanahaas dhibka loo geystay in dhibka uu ku jiro raali ka ah kan daalimka ah oo wax dulmiyayna dulmigiisa raali uga ah laakiin haddaan ka diidno oon u istaagno oo maskiintaas la dulmiyey qofkii dhibka u geystay in la soo qabta aan u istaagno dhammaanteen isku garab istaagno waxaan aaminsanahay dadaal iyo duco haddii la isku daro in qofkii la soo helayo shacabka dhamaantood waxaan ka codsanaynaa in hawshaas loo istaago hawshaas waxay difaac u tahay oo difaac adag ay u noqonaysaa ninkii biri waxaan samay lahay balse haday tan naga tagto waxaan noqonaynaa dad maalin walba ooyo dad maalin walba dhibku ku dhaca dad maalin walba ay ku soo noqoto waxaan ka codsanaynaa dhamaan reer Buloburte gabadhaas yar weynada wada damqisay dhamaanteen in qof alla qofkii hayo wax xog ama hawshaas wax ka hayo oo sir inuu u sheego laamaha amaanka ama dadka u dhow hawshaas wax ka qaban karo anaga ka dhalinyaro ahaan waxaan u jeedinaynaa baaq ummadda dhamaantood reer Hiiraan gaar ahaan reer Hirshabeello arintaas waa arin jirto waa arin aan la qari karin waa arin banaanka taalo waa arin la wada ogyahay gacmaha la isqabsado arinkaasi foosho xun ah meel looga soo wada jeesto lana raadiyo waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayadiis Quraanka ku leeyahay wa'tisamu bihamdillahi jamii'an wala tafarraqu macni inaan anaga xarigi Ilaahay qabsano aana ku midowno mar walba wanaaga raadinana falkaas xun ninkii sameeyay ayaan mar walba jeclahay waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa galbeed wixii ka dhac gondahada ka filo arinkaasi Soomaaliya meel badan oo ka dhacay sida aan wada ognahay laakiin kuwa loo qaateynaya ahaayeen ama kuwa gabar loo xilan karay ahayd sida hadda goldogob ka dhacdo kale baar dheer ka dhacday meel badan ka dhacday laakiin waxaad moodaa tan arin macnaheedu mid loo xilan karana ma ahayn waa mid ku talagal loo sameeyay maamulka iyo laamaha amniga degmada Buloburte ayaa howlgallo balaaran oo lagu goobayo dambiilaha ka wada gudaha degmada Buloburte Cabdisalaan Maxamed Ibrahim Cabdisalaan Habi Somali News Buloburte